waxaan ahay garoob macna gabadh garoob ah waan u sheegay wiilka ii guursanay inaan ahay garoob laakiin waxaan xujo uga dhigay inuu dadka hortooda iigu guursado inaan ahay gabadh waayo ma rabo dadka inay ogaadaan inaan ahay garoob wuuna iga aqbalay sidaa ma isku mehersan karnaa وش المشكلة هذه اللي قاعدين قروب تاعي ما مشكلة كتير قروب واو تاعي صوبه مركينات قروب تاعي محاربة كتير إلا وقال أنت سوارين خلطة وارين خلطة وحي خلط كتاعي كوي هرت مركل اللي سجور سنة يو مرخاتبة لقى مرمان أجورك مرخاتي كنا وحي ماشى كرد عيب ومرخاتي فوريدونا haddii meeshii gabadhii lagu guuriyay inay gabar tahay inaan oo wali la guursanin xaqiiqaduna ay khilaafsan tahay bari shuhuudu maxay marxaati kici doonaan beentii la isku guursaday in marxaati furi doonaan Soomaa wa shahadatu zuur Soomaa waa khalad waa wax qaldan oo marxaati furay waa masalada labaad waxay soo galaysaa arintaasi xadiidkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiithu asmaa oo أسماء بنت أبي بكر وحيتي هويني بقى نبي قوتي صلى الله عليه وسلم مركز وحيتي إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني وحاليه هويني دنقلاء أو ليلة قبو دنقلاء دو والله دمر كاللي سوق ليسلا قبو محيسوين يا لو دمر كاللي سلا قبو ولا لا ninba isu keenay Soomaa maxay isu yihiin iyagu Soomaaliga wax la yiraahdo dangalaysi waa dangalayaal danba iska gashay meel ba isaga yimaadeen soo mar waxay leedahay haweeney waxaan leeyahay dangala ah oo layla qabo marka ma muujisan karaa ninkaygu wuxuu san isiinin ayaa ma sheegan karaa يعني مرة أوسن الرد بحوسن السنين جوجل أوسن إيه دين وحوسن إيه قوانين مشاهجن كرا مديه كرا وحاسو إيه سمي ونوع شيء متورشاء معنا مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور روحا اسكدرشيا واسكو قرحية وحن للسنين وحن حقيقة أهين شيكتا وحلم يدابي النبي صلى الله عليه وسلم روح لبا مرة أو بين أحدي أو كلو لميدي مركا حقيقة هذا هكبن شيء وحن لقصينينها موجسن وحن شيرينها يسكو قرحين هديك اللي لبا مرة بين القبطة وحبا كما تشرو صوما مركا مفسده وين واكو شرتا وإن هدي قروب تهينا مجلسك عقدك كدعي مرخاتيدو جوغان لوغو غوري اني غبدو قروبته haddii kale tan waa in lagu guriyo inay gabarto nabigeena sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale xadiis xasan sidoo ku yimid arooskii Aisha markuu Aisha la aqal galay sallallahu alayhi wa sallam ayaa gabadhii aqal geynaysay Aisha markuu isagu sharaabkii cabay oo xaaskiisana uu siiyay oo cabtay ba gabadhii aqal geysayna wuxuu yiri adiguna cab kadibna dumarka saaxiibada ay halka jooga iyagana si dumarkii waa sharaabkii loo geeyay markaas waxay yiraahdeen la nashtahi marabnay dheh yani waa uma baahnin taqriiban waa dhereegsanahay kale baahin nooma hayso markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam la tajma'na kadiban wa ju'an bu nabiga sallallahu alayhi wasallam ya gaajiya been ha isku darina ya waad gaajiysantihiin beenna waad sheegaysana waxaad leedihiin uma baahnin oo waa dhereegsana marka been iyo gaajaha isku darina bu nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed sida laga maarmaanka ruuxa waxa la rabaa madharkiisa iyo mabtankiisu inay isku mid yihiin waxa muuqday dadku ka arkayaan iyo waxa ku qarsoon waa inay iswaafaqaan hadii kale meesha waxa ku jira waxaan saxsanay qaabkaasi marka ma saxsana qaabkaas ma saxsana bari hadii dhacdo ka soo qaad mafaasida ka dhalan karto waxa kamid bari ninkii markuu la aqal galay haweentii ayaa la isqabsaday waxay ku dooday gabadh baan ahaa isaguna wuxuu yiri garoob baan ku guursaday maxaa lagu kala bixi ya
markhaatiyadii soo maa markhaatiyadiina baatil bay markhaati ka ahaayeen soo baatilkii un furi maayaan soo baatilkii la xukumi maayo saas daraaddeed arrintaasi ma saxsana wallahu aclam